wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Marwahinda Xirsi Jaamac ayaa guuldarrada xisbiga kulmiye ee doorashooyinkii dalka ka dhacay dusha u saartay mas'uuliyiinta gacan-yarayaasha u ah madaxweynaha dalka Muuse Biixi Cabdi waxaana ka leexisay guuldarradaasi madaxweynaha iyadoo oo sheegtay in dadkii gacan-yarayaasha ahaa ee markaasi madaxweynaha la shaqaynayay ay hagradeen shaqadii xisbigu uga baahnaa xilliga ololaha doorashada Hinde Xirsi Gaani oo maanta warbaahinta kula hadashay magaalada Hargeysa ayaa sidoo kale xisbiga ucud ku tilmaantay xisbi itaal daran iyadoo oo dhinaca kalena ka hadashay arrimo kale oo ku saabsan tabashada deegaamada ay ka soo jeedaan ka qabaan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi haweeneydan uu dhawaan madaxweynaha Soomaaliland xilka ka qaaday ayaa sheegtay in xisbiga kulmiye uu dib u habeyn dambe isku samayn doono isla markaana uu doorashooyinka dambe guul ka keeni doono waxa kale oo ay Marwahinda soo dhaweysay qaabkii ay u dhaceen guud ahaan doorashooyinkii dalka ka dhacay laga soo bilaabo codbixintii doorashada ilaa doorashadii shirguddoonka golaha wakiilada aad baan idin salaamayaa waana ku faraxsanahay inaan saaka idin la kulmo madaxweynuhu gudoomiye inkastoo uu xisbiga ka yahay waxa weeyaan hangaraarac baa la lug uma dhutiyo xisbiga kulmiye waa xisbi aad u ballaaran waa xisbi muddo 18 sanadood haddaanan qaldanayn ama 19 sanadood jamhuuriyadda Soomaaliland ka jiray waa xisbiyadii la da'da ahaa qaarna ay dhamaadeen oo safxadda siyaasadda ay ka baxeen qaarna runtii ay iska jiidasho uun kaga jireen oo aanay wax weyn oo ay ka yihiin aanay jirin tusaale ahaan xisbiga wicid kale waxa weeyaan 4% ayuu kaga guuleystay doorashadii madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacday 2017 December halka xisbiga kulmiyana 5% uu kaga guuleystay sidaa aawadeed guusha qof kaliya ma sababi karo waxa sababa guusha oo keena gacmo wada jira oo badan waxaan isleeyahay madaxweynuhu muu sababine waxa sababay dadkii uu ku haleeyay talada kursi buu fadhiyaa isagu waa qof kaliya agaasim iyo maamul buu ku leeyahay tilmaamid iyo tala bixin buu ku leeyahay laakiin intayadii uu islaa iyaga shaqada ku maqan sidaad ogtahay supplierku waa mid qura kooxda teamka ciyaarayana waa 10 kale aan dhamaysto sidaa aawadeed 10 kayagii golaha ka ciyaarayay ayaa keenay guuldarrada in laga badiyo kabtanka kooxduna wuxuu ku khasban yahay inuu guuldarrada kooxdiisa uu dhabarka u rito ama uu guusheeda dhabarka u rito geesta kale Marwahinda Gaani waxay qirtay in guushi ay gaadheen isbahaysiga xisbiyada mucaaradka uu qayb ka ahaa Maxamuud Xaashi oo ka tirsan xisbiga kulmiye horta de wadanka waxa ka jira sida dastuurku dhigayo inana aynu wada ogsoonahay saddexda xisbi macruuf buu qof walba oo qaangaara oo Soomaaliland u yahay oo aqligiisu fayow yahay waxa weeyaan waa kulmiye wicid iyo wadani xisbiga kulmiyana wuxuu la tartamayay labada xisbi mucaarad ee wicid iyo wadani ayuu la tartamayay waa la oran karaa oo macnaha qofkii doona de uu oran karaa waxa gacan siinayay qayb kamida xisbiga kulmiye ayaa gacan siinayay hadalka aad weydiisay aad leedahay Maxamuud Xaashi baa ka qayb ahaa Maxamuud Xaashi xisbi afraad ma aha laakiin waa qof asaasayaashii xisbiga kulmiyana kamida mas'uuliyiintii xukuumaddan dhashayna kamida runtii samcad ballaaranna ku leh xisbiga kulmiye iyo jamhuuriyadda Soomaaliland sidaa aawadeed haddii uu isagu gacan siiyey shakhsi ahaan buu kula shaqeeyay laakiin xisbi maaha hase yeeshee waxa shaqaynaya in ka fara badan Maxamuud Xaashi oo karaamada Maxamuud leeyahay mid la mid ama mid ka badan xisbiga ku leh marka kubaddu way naga hoos baxday baan oran karaa xisbi afraadna ma jiro xisbi shanaadna ma jiro dhanka kale waxay sheegtay in aanay jirin tabasho u gaara beesha ay ka soo jeeto ay kaga camarayso madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi beeshayduna waxay ka mid tahay beelaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee wax tabanaya ayay ka mid tahay waxa weeyaan in ay iyagu wax tabanayaan de anna waan ogahay idinna waad ogtihiin laakiin meel ay de beeshayda iyo madaxweynuhu ku garnaqsadeen oo dhaliisheeda iyo dhibaatadeeda madaxweynaha dhabarka loo saaray runtii maan joogin laakiin way jirtaa tabashadu balse madaxweynuhu mar iyo lababa intii aan golaha kamid ahaa uu hogaamiyo wuxuu u bandhigay beeshayda inuu u yahay diyaar wada hadal inuuna saxo wax allaale iyo wixii oo ay tabanayaan ee sharci ay xaq wadanka ugu leeyeen inay helaan ay ila muuqataa siyaasadda dalku inay marayso meeshii ugu wanaagsanayd sababtoo ah waa waqtigii koobaad ee ay waqtigu inoo saamxo jamhuuriyadda Soomaaliland inay qabato doorasho ay iyadu u madax bannaan tahay taas oo miisaankeeda iyo culeyskeeda runtii leh mar labaadkana laba doorasho oo isa saaran
doorashada golaha deegaanka iyo doorashadii golaha wakiilada oo waqti dheer runtii aan la qabanin in badanna muddo dhaaf ahaa waxaan leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliland waxay maraysaa meel ay kaga daydaan dawladaha ka facaweyn ee ku nool geeska Afrika oo ay ka mid tahay dawladda aynu jaarkanahay ee Soomaaliya oo qaban kari la doorasho hal qof oo kaliya la dooranayo isla markaana ay dooranayaan dad ka yar 400 oo qof tanina waxay ahayd mid la dooranayo in ka badan 200 oo xildhibaan ama 300 aan idhaahdee marka la isku daro inta hadhay iyo inta soo baxdayba oo saddexda xisbi qaran uu mid waliba sharaxanayay tirada gobol waliba iyo degmo waliba iyo qaran waliba uu ku yeelanayo labada gole ee golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka sida aawadeed waxaan leeyahay waa wax lagu majeerto ilaahayna loogu mahad celiyo aniga oo runtii mahadnaqa inta ugu badanna siinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan isleeyahay la'aantii may suura gasheen sidaad wada ogsoon tihiin waxay fadhiyeen mudanayaasha aqalka wakiiladu muddo dhan 15 sanadood 15 sanadood xukuumadihii kala horeeyay ama kala dambeeyay ee ka jiray dalku way u suuroobi weyday in ay qabtaan ha noqoto hag dhaqaale hag awoodeed ama seba xaq ku dhac oo ku dhiiranaan inay intaas oo dhan u babacdigaan waxaan leeyahay waa maanta waa maalin aynu dunidana ugu faano inaguna aynu isku iibino dadkuna ay inaga daydaan wad mahadsan ku xidhnow gobonimo news mar kasta iyo meel kasta